نمبا شلي يمد وشلي صباح قلن كي هرو 4 ساعة 5 ساعة ميلاها ساحل nin saaxiibkiisaha maalin dhaweyto qiso ku dhacday iiga sheekeeyay markaas waxaan ku yiri waxaan rabi lahaa asaga laftigiisa inaan ka wariyo oo aan arko ninkii baan la kulmay shalay waxaan weydiiyay qisadii aan saaxiibkiis ka maqlay sidee ahayd buu igu sheegay wuxuu yiri dibadaan joogay Canada habeenkii baan seexday anoo iska caafimaad qabo fiyow ilba ay damtay dam hal ilbaan waxba ka arkay dhag bay tiri خلاص waa seexad wax yar ka bacdi tii kalena waa damtay labadii indhood dam bay noqdeen wiil yar oo dhagalaaba ii joogu yiri haweentuna shaqay aadaa telefoonku hadaa dhacay asaguna maqli ma hayo aniguna uma jeedo markaasaan xanuunkan igu yimid dhaqaatiirtii baan aadnay wiil halkaan tag dhakhtar hebel u tag mid hebel u tag ana degdegaha la igu sameeyay oo kala duwan natiijadii waxay noqotay waxba laga ma qaban karo markii dama dhakhtarkii wuxuu yiri ugu dambeeyay laba mid weey inaad wadatid ay ku hogaamiya oo aygu aad ka haysatid aygaas aad gadatid yeena u shaan dheer oo la qaadatid dadka indhaha la qaataan labadaas mid u yeel waqti kale sallam anoo xaaladii labadii midna aan sameyn oo gurigii jooga ayaa magaalada Canada waxa yimid nin wadaada adeerkay baa u tago arintii u sheegay kambuu markii la igeeyay wuxuu yiri waxaan musiibo kugu dhacday weeye ku sabar ducadaana waa ibaray wiil adhib al-ba's rabb an-nas washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqam habeenkii baan soo kacaa salaatul layl baan soo kacaa salliga aan haysto dhinaca qiblada u jeeda saacad yar oo ku dul dhiga masaa u taabtaa oo iska tukadaa ducadaana ilaahay baan ku baryaa oo ku tuuba 3 bilood muddo intaas la eg markaan indha la'aan ahaa waxaan arkayaan aan la arag ayaan habeenkii dambe salaatul layl tukaday ducadii ku ducaystay waan seexday salligii laftigiisii baan isku tuuray salaadii subaxiga oo aan la gaarin subaxii markii la gaaray baa haweentii intay soo dul istaagtay ikicisay wiil haddaan saas madaxa u soo qaaday labadii indhood baba waa siday bari hore ahaan jireenba Allahu akbar waa siday bari hore ahaan jireen markaas ay ugu dambeysay shalay oo aan arkay laga bilaabo waagaas ilaa hadda indhahayga wax yar wax weyn midna kama dareemin shalay oo aan arkay wuxuu waxba kama dareemin wax xun wax oo indha la'aana maantaas ilaa yoomina hada wax yari wax weyn wax iga maqan ma qofka muuminka ah markii dhibaatadu ay ku dhacdo waxa la rabaa qalbigiisu markiiba inuunan u jeesanin dhakhtar hebel isbitaal hebel kaasa takhasus gooniya haysta kaasa fi usafir hal yimaada asbaabtu ha aado laakiin qalbigiisu markiiba si toos ah inuu ugu xirmo khaliqul asbab ilaaha keenay jiradan inuu ku xirmo ilaahi wuxuu leeyahay wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu hadii ilaahay dib kugu taabto wax ka kashfin karo ka qaadi kara mala illa asaga mooyaan asaga keenay u baqaadi kara wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir hadii ilaahay khair kugu asiibo kugu taabtana waxaad ogaanaysaa ilaahay wax kasta inuu awoodo